markaan waxa inoo xiga inaan u jaleecno dhanka haweenka qof runtii muhiim ah oo halkaan hadii joogtay iyo wadankii hadii joogtay anigu waxaan jeclahay title-keedii markay Puntland joogtay ee ahaa gudoomiyaha habeenka gobolka Nugaal Maama Caasho Geele waana hadee wixii ka soo jeedaa saldanadii Yuusuf Daarood ee ree Ugaas magac ka maskiin maaha Maama Caasho soo dhawow gabdhaha lagu baaray dulqaad gaarashalay gabdhaha lagu hubo hubiyo gobolka oo la gaaray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله دمان waxaan salaamayaa bulshaweynta sharafta badan ee ka soo qayb gashay xafladan maamuuska lagu maamuusayo beesha dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa qof walba magaciisa iyo matalaada uu ku fadhiyo meesha iyo maamuuskiisa aan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii mahadnaqa iyo maxaan ku idhaahdaa ammaanta loo soo jeediyey gabdhaha isku soo xilqaamay xafladda tan iyo wiilashaba inkastoo gabdhuhu mudnaanta leeyihiin waxaan la wadaagaa raggii hore aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa gabdhihii juhdiga geliyey oo halganka dheer soo galay oo caawa noo suurtageliyey inaanu xafladan isugu nimaadno waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba gabdhihii xafladda tan noo suurtageliyey waxay gabdhuhu munaasabadda tan inay beeshu isku aragto iyo inay calankooda ugu dabaaldegaan ayaa munaasabadan magaceedu ahaa laakiin waxaanu jecel lahay inay ka xeel dheeraato oo xaflad Soomaaliya oo dhan laga xuso siiba anigu maadaama la yiri hadeed isim baa ka soo jeedaa isku beel kuma koobna waxa laga yaabaa inaan meelo badan taabto yaan la iga xumaanin intaas waa iga kaftan calankiinu dhalinyaro meel aad joogtaanba dal iyo dibad gobol kasta istigaad kasta beel kasta aad tihiin calankiinu wakaas kaasa u baahan taageero iyo isku hayn iyo midnimo kaasa inoo ka baahan kaasaana idin kula dardaarmaynaa meel aad joogtaan aynu ina ka dhaxeeyo waxaan rabaa labadaas kelmadood waxay yihiin mid waa maamulka Khaatume State oo nagu soo biiray dhawaan Khaatume State waxaan u diraynaa hambalyo iyo mahad ballaaran baan u diraynaa waxaanu leenahay ilaahay ha u adkeeyo Khaatume khayr nooqa Khaatume guulaysato noqaanu leenahay mideeda kale anagu dadkaani meeshaan ka soo jeeda badankoodu kolay waa reer Puntland waxaanu ka maqlaynay xoogaa sharqamo yar baanu ka maqlaynay anigu 10 sano dambaba sida loo sheegay waxaan ku jiray siyaasiyiinta Puntland aadna waa ula socdaa siyaasadeeda Puntland runtii waxaan oran karaa waa tiirka Soomaaliya burburkeeda iyo khulkhuladeeduna waa dib weyn weeye Soomaaliya dib weyn ku ah waxaan u leeyahay arintaas Puntland 10 sano dambe waan joogay gobol kasta oo Soomaali ku loo tahay waqooyi iyo koonfur iyo noorad intaba waa ka helaysaa dadku waa ka ganacsadaan qof walbana wuxuu ku haystaa hantidiisii iyo naftiisii baraadliibu u seexdaa qof waliba walwalaan iyo cabsi ay bay ku joogaan taas way aan u leeyahay Puntland waa tirxaadkii Soomaalida waxaan kaloo u hambalyeeynaa dawladda Soomaaliyeed oo dawladdeedii ahayd oo dawladda dhexe ahayd iyaduna waxaan leenahay ilaahay iyadana kor ha ka dhigo ha adkeeyo Soomaaliya ha israacdaan leeyahay anigu haddaan u soo noqdo xoogaa runtii sidoo u sheegay aboowe wuxuu sidoo u sheegay waxaan ka soo shaqeeyay bulshada arrimaha bulshada oo badan baa ka soo shaqeeyay state-ka Puntland waxa la soo shaqeeyay hay'ado dhowr ah oo kuwa localka ah oo ka shaqeeya wadanka sida hay'adda UNDP IRC World Vision oo kulligood arrimaha bulshada u shaqeeya waxaan ka mid ahaa
ururkii mideeye aasaasayashiisii baan ka mid ahaa haddana aan mimbar ka ahay waxaan ka aasaasnay degmada Buurtile urur haween oo isaguna aad iyo aad ummadda lafdhabarteeda ah oo anigu hadda aan gudoomiye u ahay marka sidaasay noogu xeel dheer tahay hadalka dad badan baa u harsan aad iyo aad baan idin salaamayaa waa mahadsantihiin